بسم الله الرحمن الرحيم صديقه وسودو عليو ودوي ورصاحب يال ninka soo dhaweynaya waad maqlaysaan baan u malaynayaa waa ninkii sadiiq ahaa waa ninkii caanka ahaa waa ninkii yiri dhowr jeer ambulance baan kula baxsaday caanimada waa ninkii aad arkayseen ee kontonka diyaaradood dhowrka bilood gudahooda ku raacay kullee isaga inooga warrami doona waxaan doonayaa inaan mar kale ku soo dhaweeyo ninkii sadiiq ahaa magaalada Jigjiga oo aan u sheegay kolkii uu tagay inuu kursiga sugayo iyo wixii la soo noqdaba war sadiiq soo dhawo ogeysiis muhiima uu kaaga yimi shirkadda almustaqbal ee xajka iyo cumrada waxay bilowday diiwaangelinta walaalaha doonaya in looga cumreeyo waalidiintoodii dhintay amaba aan awoodi karin gudashada cumrada bisha rabadaan oo muddo kooban ay naga xigto taasi oo qofka sii diiwaangeliya hadda uu helayo qiimo dhimis 10% ah waxaa kaloo socda diiwaangelinta dadka cumrada tagaya wixii faahfaahinay intaasi dheer kala xiriir nambarada shashada kaaga muuqda war sadiiq soo dhawo عليو aad baa u mahadsantahay inaad soo dhaweyso waana ku faraxsanahay Gole Studio inaan ku soo noqdo meeshan waa meel muhiim ah noloshayda iyo noloshaadaba laakiin dadku in dhoolayaal ma aha way ina arkaane inama maqlaan saa ula soco waxbaradii calow dadku way ina arkaane inama maqlaan waayo maxay inoo maqalso anaga mikrofon ku hadlay sidii inoo idaacad dhageysi ka hadlayna waxa tiri waad maqashaan baa tiri dadkii moogtay way ina arkaan way ina ليسودي أقوياء كويك. واي. صديق وحبري يجيني. ما تستدين وحبرت سوى مسؤول بسني. في عوا مكايا بناي. هاي واي. إن صديقه وحدي قبل لو ذا. وهذيك كل هالكن يميد أنت درجيسة بوقتي سفر كاجي إن هذيك أورتشيني ناد ملك لو سيام ببعض. نقص والله بتي. وحندوني هنا شكل ذي قبل لو ذا إن هرجيسة تكون نقطة وهولا جن حسبات. دي بقول نقطة. كده بنادون صلاة بنين بعد أصيد أفتي لا يو حمر. hargeysa maxaa kugu celiyay mar labaad sidoo safarka uu ahaa bal howlihii aad maxaad kala kulantay markii labaad waa maasanta caliyow hargeysa de markii aan halkan ku soo noqday eed kaliga ay soo dhaweysay waxoogaa waxaan u soo imid inaan diyaar garoobo oo safar dheer oo kale to aan u baxo markii hore aniga oo qalab igu filan iyo dhar igu filan iyo aan wadanin yaan xaggan hargeysa aaday marka jawigii aan hargeysa kala kulmay baa wuxuu igu dhaliyay inaan safarkayga sii ballaadhiyo anu sidaydaba iskuul caadi ama baranin maalmaha caadiga aan wax ka bartaa anigu iskuul Soomaalidu aysan dhiganin baan dhigtaa maalmaha caadiga iyo nolol maalmeedkan iyo gaadiidkan aan raacayn iyo maqaaxiyahan galayni iyo dadkan la kulmayaan wax ka bartaa adii xataa wax badan ma ka bartay waan gartay marka hargeysa waxaan ka soo bartay safarkaygu inuu sii socdo inay ku fiicnaan lahayd oo jigjigiyo hargeysa inaan u dhaxeeyo de marka dambe hawshaydu inay soo afjarmi doonto sideedaba aanu baasha waa ku dadaalaa moogtay inayna dhimanin caanimada hay marka haddii maalan de hargeysa mar bay baasha badbaadisay xal kale loo waayo meelo kale oo casri ah inaan u raadiyo baan u baxay marka waan imid waa diyaar garoobay waxyaabihii safarkaygaas kale muhiimka u ahaa ilaan jawi kale aan galayay moogtahay iyo meelo kale oo ka duwan hargeysa marka saas aan u imid waan diyaar garoobay hargeysaan ku noqday 2 bari baan joogay labadii bari khayr Allah iyo taageerayaashaydu way soo dhaweeyeen ballanqaadiyaa la sameeyay inkastoo ballanqaadyadaasi kuwaad ii sheegtay horta gabadhii ma lagu siiyay wadigii reer hargeysa gabadh bay ballanqaadeen minay gabadhii wali leeyma siin maxaa dhacay oo maxagaaga cilad ka timid mise xagooda ma wala soo diyaarinayaa baan u malayn kulli gabadhii lagu siiyay wali maadan ma arag waan maqlay laakiin marka anagu waxaan islahay ninkii hargeysa maadaama aad ugu noqonayo gabadhii baa la siiyay uu dagay reer ba halka u dagan baan islahayn niyo meesha horta caliw horta dab hay gelin xaasla baan ahay laba xaas baa meeshan ii jooga khayr Allah siiyo meeshaas laakiin gaari iyo gabadhba waan maqmaqlahay in laga yaabo in la siiyo laakiin waa 50-50 ma garat marka ala kulli xaal hargeysa hadaan wax ka helo iyo hadaan wax ka helinba waa magaaladeedii oo jecelahay oo ku qanacsanahay waxa iga jooga taageerayaal xoog badan taageerayaal hargeysa oo kaliya awood wadan leh baa iga jooga horta marka aniga oo hawlo muhiim ah ay wali iga yaalaan hargeysa yaan sii dhaafay waxaan damcay inaan 10 maalin kadib u soo noqdo
toban maalin kadib haa haye 10kii maalmood baa waxay igu qaadatay 43 cisho 43 inaan kusoo jiireeyo 11 diyaaradoodna aan raaco 11 diyaaradood doobiilihii ugu horreeyey ee 40 iyo dhowr cisho 11 diyaaradood raaco oo mid halaysan tahay baana doobiili ugu safarka badnaa haa dadku waxay moodayaan doobiiluhu inuu siisa miskiin yahay moogta haye adeer masaakiin ma nin haye oo ka maatiin dee idinkoo kalaa idinkoo kalaa horta doobiilayaashu madaxa kor ha u qaadaan maya horta waad naga safar badan tahay 11 diyaaradood oo waddanka gudihiisa baad raacday adiga oo niyo safarada ayaa kharash garaynayay wallaahi niyow safaradaasi waxaa kharash garaynayay taageerayaashayda dee anigu taageerayaal ballaaran baan leeyahay xataa dadku waxay leeyihiin niyow maad soo sharaxdidba oo aad hogaamisid dadka soomaalida waxay tahay anu nin daacadaan ahay calow nin daacadaan dadku qof daacaday u baahan yihiin moogta laakiin aan is ammaane laakiin dee daacadnimadaadu waxaa la socda soo maaha qof dadku way isku dhex jiraan qof aad wax kula ballantay oo wixii wax kasii ka noqdeen waad la dagaalay niyow waa runtaa waan dagaal badanahay laakiin heshiisyaa ka dambeeya inta badan dagaaladayda marka heshiisyadan baa la xisaabiyaaye sideedaba dagaalka heshiisku ka dambeeyo dagaalka lama xisaabiyo heshiiskaa la xisaabiyaa waayahay maayarka magaalada hargeysa mooge muuqaalkaagi hore waxaan ku daawaday inuu ku yidhi de soo deg magaalada oo deg arrintaasi maxaad ka tiri oo ma qaadata cabdikariin axmed mooge maayarka magaalada hargeysa aad baan u salaamayaa waa nin runtii aad u fiican oo qalbi wanaagsan oo maaragtay dun xariira leh horta meel aanan markii hore ku talagelin baanu isugu nimid kulankanagii koowaad ee kaftanka uu nagu dhex maray ee laga yaabo inaad horey u aragtay calow marka isagoo hawlo ku jiri iyo aniga oo niman dhalinyaro ahoo i wadwaday ay golaha baarlamaanka ay igeeyeen yaanu meesha ku kulannay marka casuumaad buu markii ii fidiyey habeennimadii dambe yaanu casho isugu nimid aniga iyo dhowr qof oo uu igu yidhi soo kaxayso haddaad u baahan tahay iyo dad ka mida dowladda hoose ee hargeysa shaqaalaheeda iyo isaga marka waa sheekaysanay waa kaftannay waqti baan wada qaadanay hadiyad buu i siiyey khayr allaha siiyo kadibna waanu kala tagnay arrintii laakiin ku saabsanayd soo degtay waxay ahayd uun inuu i dareensiiyo magaaladu inay magaaladeydii tahay inaan soo dhowaado in dee wixii markaad qofku soo guurayana waxyaabaha laga yaabaa inuu ay ku yar adkaadaan marka in waxyaabaha iyaga in laygala shaqeeyo ama layga caawiyo in diyaar loo yahay buu ii muujiyey marka dee marka qaarkood marka arrinkaasoo kale laguu soo dhigo wixii haddaad adigu sii daba socoto dhahdo waxaas iyo waxaasaan kaaga baahanahayna mas-uulku kaa caawini haddaad halkaa un kaga sii socotana waad mahadsan tahay wixii waan kaa qabaa wey marka maayarku wuu mahadsan yahay waxbuu ii soo bandhigay aniguna maaragtay wax dambe uma doonanin marka adigaan dabagelin hawshii ashifo waa xarun caafimaad oo casri ah oo ay ka howlgalaan dhakhaatiir takhasus sare leh oo luuqadaada hooya aad kula hadli karto adeegyada ay bixiyaan waxaa ka mid ah takhasuska loo yaqaan ENT oo kala ah adeegyada dhagaha sanka iyo cunaha oo qalab casriga ku gaashaaman daaweynta carruurta cudurrada gudaha ama internal medicine daaweynta xanuunada aan joogtada ahayn iyo qaliinada guud qalimada qaar waxaa lagugu samaynayaa adeega laasarka casriga ah haddaba kala xidhiidhi taleefanada shaashada ku qoran marka adigaan dabagelin hawshii anigaan dabagelinoo dee waqtiba ma hayno waa anigii sii tegay ee xagga iyo dhul ilaahay waa anigii tegey runtiina dee anugu halkan aan deganahay marka laakiin say inta badan soomaalidu wax u akhriyaan ma aha qofku markuu inuu qalbigiisa ku siiyo oo wax walba uu kuu horeeyo uu kuu caddeeyo micnaheedu ma aha dee boorso soo qaado aan wax kuugu shubay kaale waxbarta annagu waxaan islahayn maayarka bas wey maayarka iyo ninkii waa isla jaan qaadeenoo
ما waxaad iga baahato waad iga helaysaa wey waan ku garab taaganahay wey marka baahidaada ay ku xiran tahay laakiin aad markiiba aduu baahi isku abuurta ma haddi anu ma baahnayn waayahay wuu mahadsan yahay maayarku saas wixii gudaha adaa sii garanaya laakiin mar waxaan u haysanaa hadduu qof maqaamkaasoo kala joogo ku yidhaahdo soo deg magaalada inaad magaalada ka qayb tahay ood kaarkaaga aqoonsiga qaadato oo aad degan tahay baad iyaad noo xisaabsanta haddii aan u baahdo haddii aad u baahanto waa diyaar waan ka dooran karaa de kolleyna shuruuc baa jirta oo meeshan sharci baa la raacaa weliba calow aan kugu dare qolo cabashaabaa ii timid oon rabay inaan arrinkooda kala hadlo maayirka laakiin waan iloobay saanu dee u kaftamaynay anagu reer waqooyigu ma ogtahay waa iskaftan naqaanaa ma ogtahay saanu u kaftamaynay baan fariin aan rabay inaan u gudbiyo baan iloobay kadib waxaan damcay inaan adigu si kaleeto ula xidhiidho tii kalena way igu adkaatay fariintaas waxay ahayd arrinta aqoonsigeed soo hadal qaaday ni way adag tahay somalilandta in dadka qaarkii ay helaan dad waxaa jira 30 sano u dambeeyey hargeysa iyo magaalooyin kaleba deganaa oo somaliland oo haddana aqoonsigu uu ku adag yahay waxaa la ii sheegay inay jiraan shuruuc ah dadkii 60kii deganaa somaliland keliya inay sharciga qaadan karaan ama aqoonsiga qaadan karaan ama baasaboorka marka qolyo asal ahaan deegaanka soomaalida ka soo jeedo oo iyagoo cabashaa ii yimid baa jira oo igu yidhi niyow dee idaacadaha maanta la dhegaysto iyo kuwaagu ku jiraa iyo taadu ku jirtaa dhib baa halka naga haysta dhibkaasoo ah dee dadkii way ka ganacsadaan meesha dhammaan shaqooyinka kala duwan bay qaybo ka yihiin waxbay ku barteen meel walbay ku jiraan laakiin aqoonsigii iyo ID kaarkii baa caqabad ku ah dhaweeye kuma shaqaysan karaan caruurtu markay wax bartaan hadday helaan deeq waxbarasho ID kaarkii baa lagu xidhi qof marti ah oo deegaanka soomaalida laga yaabo inuu ka tegey ama meel kale ka yimid oo soo gudbahaya markuu soo baxayo qof walba waxaa laga rabaa inuu qof somaliland ID kaarkeeda haysta uu damiin ka noqdo ammaanka aad bay u adkeeyaan waana ku bogaadinayaa sababtoo ah qofku waxaa laga yaabaa intuu wax qaso inuu iska baxo hadhowna meel hor raacay isla lahayn marka qof damiin ah anigaygana markaan sii socdana damiin baa layga ahaa markaan soo marayana damiin baa layga ahaa marka arrinkaa qudhiisa caqabad buu keenay oo dadkii ehelka ahaa ee meesha joogay dadkii ay garanayeen damiin kama noqon karaan waa inay qof kale oo reer somaliland ah oo qabaa'ilka kale ah ay raadiyaan marka maxaan idhi dee adduunkan yurub iyo waad aragtay 7 sano 8 sano markuu qofku joogo dhalashadii buu qaataaba markaasuu isna wax doortaa isna la doortaa dee nimanku ilbax bayba ahaayeen maxaa dhacay baan idhi oo waxaa la yidhi maya waa arrinkaas way adag tahay muddo badanna waan soo dacwoonaynay marka somalilander baan nahay bay dhaheen laakiin nalama aqoonsana marka waan la kaftamay waxaan ku yidhi dee somaliland iyada qudheedu aqoonsi ma haysatee aqoonsiga waad wada heli doontaane iska dulqaata baan ku yidhi laga yaaba markiin hadda loo fududeeyo wallaahi dee waa suurtagal hadda intaan xaggaa ku maqnaa muqdisho xaban maqlayay waa la aqoonsadee waa suuragal in maarata waxyaaba badan isbedelaan laakiin sharcigaasi wuxuu u baahan yahay baa laygu yidhi wasaaradda arrimaha gudaha in ay soo waxayso oo soo ansixiso oo hargeysa xataa inuu ka ballaaran yahay baa lay sheegay maayirka waxaan u rabay uun inaan weydiiyo bal arrinkaasi inuu jiro iyo inay caqabada iska hooseeya yihiin aan kugu daray calow dadkaasi caqabada kale haysata waxaa ka mid ah somaliland reer walba caaqil bay leedahay ama ugaas ama suldaan suldaankoodii wuu joogaa oo isna bilaa aqoonsi ah oon kaar lahayn oon dowladdu aysan aqoonsanayn oo meeshan uu soo garweyn isagoo oo bilaa aqoonsi ah marka wuxuu ku leeyahay waa laygu caana shubi lahaa wax walba waan diyaarinay laakiin wasaaradda arrimaha gudaha ee somaliland haddaynan ku soo siinin ogolaansho xafladdii xataa lagu caana shubi lahaa lama samayn karo marka halkaana caqabad baa ka taagan oo isaga naftigiisii meel looma raaci karo isaga qudhiisu waa caaqil bilaa garaacda ah weeyaan oo kuwa kale aan la mid ahayn marka dee bahasha naga qurxiya haddii ilaah yidhaahdo niyaho waxaan maqli jiray waagii hore soomaalida NFD degan kenyada aad bay ugu milmeen kolkii qof halkan
ka taga xaggeena ah Mhm. oo galti bay yidhahdeen ha xaggaa kolkuu tago Mm. heer waxay gaari jireen in lagu kaftaminayo in lagu dacaayideynayana way noqon kartaa oo loo sameeyey Mhm. laakiin sida inta u badan ay dhacdo Mhm. haddii qofka xaggan ka tegay oo xaggaa jooga uusan kamaandho qaadanin Mhm. way adag tahay si ugu noolaado bulshada xitaa dhexdeeda ha dadkas jooga meelkaa degan Mhm. heer hadduu sheekh yahay xitaa ay yidhahdaan masaajidka see u tujin karaa kamaandhaba ma lehe ha ay yidhaahdaan Mhm. qofkii xaragoonaya jidka maraya ay yidhahdaan day maxaa iska xaragoona kamaandhaba ma qabe waa saas ay yidhaahdaan Mhm. oo gabadh xitaa mararka qaar ka guursan karin oo la yidhahdo muxuu ku guursanaya kamaandhaba ma lehe Mhm. marka hadda waxaad leedahay somaliland halkaasay maraysaa Soomaaliya halkaasay maraysaa waa run sheekadaad sheegaysa Kenya waa xaqiiqo hebel muxuu sheegi kibandhawa ma laheeda way jirtay hadii anu Kenya waan kusoo noolaan jiray xilliyo waxaa jira xataa gaarisa waqtiga aan joogay intaasoo dee hadda waa la xoreeyey meesha nimankaasi xornimay gaadheen laakiin xilli waxaa jira waddada markaad soo gasho ilaa waddada kaleeto inta u dhaxaysa askari inuu taagan yahay la fiirin jiray kadibna xagga kale marka tan way ka duwan tahay oo maanta dhan magaalada haddaad ka shaqaysanaysa iyo waa caadi laakiin arrimihii nolosha quseeyo oo dhan baa ID card ku xidhan hadda weliba waxaa lagu soo daray intaan hadda jigjiga imid aan arkahayey maadaama amniga lasii adkaynahayo hotel xataa inaad seexan karin haddaad ID card haysan hargeysa ha oo hotelkaasi la ganaaxayo maaragtay sharciga la waafajinayo haddii qof ID card aan haysan marka qofkii musaafurka ahaa ee laga yaabo inuu ehelkiisu halkan deganaa oo dee dadka qaarkii ay hoteelo leeyihiin dadka qaarkii ay leeyihiin goobo ganacsi oo waaweyn dadka qaarkii ay u shaqeeyaan shirkadaha waaweyn ee isgaadhsiinta haddana ilmahoodii baaban xataa lahayn ID card iyo sharci marka waa yar caqabad wey ilbaxnimada waxay ku tahay caqabad maya waxaan kula talin laynaa reer somaliland maadaama ay bulsho ismaamul oo meel ku dhaqan oo ummad dhan oo magaranaysaa ganacsigeeduna aad u xawaara badan yahay badan leeyihiin oo magaranaysaa way u baahan yihiin population aad u badan sidaa daraaddeed xukuumaddu waxaan usoo jeedin lahayn tala un baynu ku leenahay in dadka aqoonsiga loo fasaxo dadka deegaanka degan ee ku nool meesha 5 sano wix ka badan xaq buu leeyahay inuu somalilander noqdo sharciyada caalamiga adduunka u yaalo kale kolka waa inay arrintaa wax ka bedelaan baan jeclaysanaynaa insha allah dowladda madaxweynuhuna waxaan rajaynaynaa warkana u gaadho kolley garan mayno culays inay culays ku noqon doonto arrinta annadu oo dee waxaan malaynayaa wax dhiba kuma ah hadalka annagu laakiin waxaan rajaynaynaa reer somaliland wasaaradda arrimaha guduhu iyo maayarkuba inay hawshaa ka howlgalaan insha allah dowladda oo dadka aqoonsiga la siiyo si ay ugu noolaadaan si xora deegaanada degan yihiin waa sax halkaan kasii gudbo sadiiqow waxaan u gelayaa bal ka waran waxaan gelayaa barnaamijka qaybtiisa labaad waxaan rabaa inaan magaalo aan u kor istaagno safarkaagii waxaad iga bilowdaa raboorkaad ka baxday safarkaagii siduu ahaa iyo xamar waxaad kala soo kulantay iyo bal halkaa iyadana ii qaba hadda ma jeceshahay barashada qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa hab casriga online adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada haddaba dugsiga casriga ah ee maka islamic online waxaad ka baran kartaa qur-aanka kariimka higaada luqadda carabiga iyo culumta shareecada isqoristu way socotaa fadlan horow gaadh wixii faahfaahina nagala soo xidhi +252 eber xamar intaana u tallaabin dee hargeysa saan ugu tallaabay maad ay weydiinine sidee sii socodkaygii hore markii aan noqday de migrationki haddana waa laygu qabtay halka asxaabna waa nahay way igu yar dhegdhegaan moogtahay haye marka taliyihii immigrationka yaan la hadlay waan ku yidhi isaga ila hadashiiye haye marka khayr allah siiyo maadaama dee hadda isbarannay oo dee nin nabadgelyaan anuu iska ahay moogtahay nabadoon baan iska ahay haye isagii baa dib loo wacay oo wuxuu yidhi dee goormaad haddana soo noqotay oo haddana nagu soo laabatay buu yidhi haye halkan waan ka salaamaya waan uga mahad celinayaa taliyaha haye marka waxaan ku yidhi howlaha safarkaygii muqdishoaan u socday oo waxbaa iga dhinaaday waan soo noqday haye marka caadiyan waxay ahayd inaan $30 intaan bixiyo dee aan dib u noqdo haye marka taliyuhu isagaa iga bixiyey lacagtii haye sidii baana hargeysa ku aaday haye gaadhi qumanna doorkan waan raacay haye markaan sii baxahayey yaan haddana caqabad kale la kulmay oo waxaa laygu yidhi sadiiqow dee barnaamijyadaada dhan waan ku xidhannahay somalilandu horta hay-adaha nabadgelyada iyo shacabku waa isku mid caliyow haye ma aqaano inaan inagu saan nahiyen kale
adaa iga yaqaana dowlad deegaanka waxa weeyaan shacabka oo dhan waa nabadgelyada waa laga wada shaqeynayaa haye dadkan maaragtay beejajka inoogu jiro dhan waa la isku wada xidhan yahay haye markaan sii baxayay baa waxaa laygu yidhi dee niyahow dadka soomaalida ah maaragtay baasaboorka aan haysanin qaab baan ula macaamilaa haye etoobiyaankana qaab baan ula macaamilaa haye adugu waa isku qasantahay waa sidee baa laygu yidhi haye haye beenna maana kugu aqoonin haye marka waxaan ku yidhi anu dee laba dhalashaan leeyahay baan leeyahay wax qarsoonna maaha haye marka haddana xaggaasaan u socdaa ee dee bahasha ii fudaydiya baan ku yidhi oo adigu Ah. sharciga ma baratid miya soo horta aniga aad igu dhihi jirtay adigu wax ma baratid miya horta niyaho wax waan bartaa xoogaa waan yar degdegaa marka anoo barkada dhex taagan masarka awl doorkii hore ah migrationka waxbaa kaa qabsaday oo adigii dhi youtuberka caanka ahaa waxaan ahay reejiga meydana garanayna lagu soo celiyey kol dambe arrintii wadinka nimankii hawsha intaad dhamaysteen lagu sii daa lagu yidhi arrimahan ha noqonin waxaa tahay waddan baad u gudbaysaa kale ha maxaad marka si sharciga ugu gudbi weydaado marka oo maxaa caqabadaha waxaan sidhi maadaama nimanka isbarateen wuxuu saas sharci ku yihiin baan sidhi marka haddana shuruucdii kale ay qabatay marka waan gacmahan kor u taago waxaan idhi walba ha layga qalleeyaan idhi halay cafiyo doorkana waa idisii dhaafayaa isii tarxiilaan ku idhi oo waa lagu tarxiilay meel layma tarxiilin si sharaf leh yaa hawsheedii laygu dhameeyey waxaa laygu ballameeyey airportka hargeysa qaybta v i b da weliba layga maaragtay layga sii gudbiyey waxa aan meesha kula kulmay sarkaal asalkiisii reer dhagax buura soo hadda maynaan ka sheekeynaynin dad asalkoodii deegaanka ka soo jeeday oo bilaa sharci ah saraakiilla way jiraan halkan ka soo jeedo oo iyaguna sharci leh way jiraan oo ha dowladda ku jira waa run ha baashu moogtay dhinacun kama rarin inagu marka ninkaasaa laygu ballamiyey si aana dee xoogaa argagaxa u dareemin axmed baa la yidhahdaa waa salaamayaa waxaa kaloo maaragtay aan meesha kula kulmay taliyaha airportka jooga wuxuu igu yidhi waxaan ahay buu igu yidhi ninkii hadda ka hor wajaale kugu xidhi aad ka dacwoonaysay baan ahay buu igu yidhi aad baan u salaamaya waan u mahad celinaya marka ninka iska kii cafi buu igu yidhi de waxaan ku yidhi waxba dhib male cafis baad iga tahay sharciga unbaad ilaalinaysay baan ku yidhi anaa khaldanaa sharciga jamhuuriyadda unbaad ilaalinaysay dhib ma jira baan ku yidhi moogta marka anaa khaldanaa marka idinkuna iska kii cafiya baan ku yidhi waradu ninkii waanu isbarannay si farxad leh buu meesha igu soo dhaweeyey waxaygii oo dhan buu yidhi ha loo dhib yareeyo qaybtii v i b da layga saaray ayar baan diyaaraddii saa si sharaf leh saasaad ku tagtay yaan ku tegey halkaasaynu muqdisho ka gelaynaa marka ila soconniyo halkaa waxaan ku dhaafaynaa barnaamijkii hargeysa waxaan u gudbaynaa qaybtii labaad